macaasida iyo fujuurka iyo dembiga iyo fisqiga badnaayow bishani maaha bisha ilaahay la caasinayay ka joogsa guuna ka joogso ka gaabso waa bishii khayrka weeyaane soo qaabil bishii cisyaanka iyo macaasida lala imanaya maahina ka gaabso oo ka joogso waa bisha uu nabigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam rabadaan haddii uu yimaado albaabada jannada ayaa ilaahay jalla wacalaa ayuu furaa albaabada naarahana waa la xidhaa buu nebigu yidhi maradatu shayaadiinna waa la xidhaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa bil habeen kasta oo bisha rabadaan ka mid ah uu nebigu sheegay inuu ilaahay leeyahay addoommo uu naarta ku xoreeyo fii kulli leyla min layaali hada shahr almubaarak lilaahi cutaqaa'a min annaar ilaahay waxa uu leeyahay addoommo uu naar ka xoreeya bisha rabadaan allah inaga dhiga kuwaas innaka iyo eheladeenna iyo waalidiinteenna iyo waalidiintoodii iyo awlaaddoodnaba dhammaan ilaahay naarta kuwa ka xoreeya haynaga dhigo waa bil uu nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam ninka sooman wuxuu leeyahay duca mustajaaba oo la aqbalo oo inta cadeedu aynan dhicin oo marka afurkaan u diyaargaroobayno saacaddaasi qofka ducaysta ilaahay baahidiisa u sheegta ilaahay ducadiisa ma soo celiyo maalin nin acraabiyo reer baadiye ah ayaa majliskii nebigeenna intuu iska dhex taagay buu yidhi yaa rasuulallah ilaaha xaggiisa aad noogu yeedhaysa maku naga fogo markaan baahideeda u sheeganayna maan u dhawaaqnaayo hadalka kor maan ugu qaadnaa mise waa mid noo dhow oo hoos baan ula hadallaa u aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam deedna ilaahay baa yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib hadday addoommahaygu aniga ay kaa weyddiiyaan waxaad u sheegtaa baa ilaahay yidhi inaan anigu addoonka aan u dhowahay ujiibu dacwata daaci idaa dacaan ka ibarya baryadiisa baa ilaahay yidhi xilliga oo ibaryaya baryadiisa waan aqbalayaa laakiin laba shardi baa ilaahay ku xidhay ducada in la aqbalo falyastajiibuu lii waliyuuminuu bii lacallahum yarshuduun aniga hay ajiibaan baa ilaahay yidhi oo baaqayga ha yeelaan oo wixii wanaaga een farayna ha la yimaadaan wixii diinteeda islaamku ay ka reebtayna ha ka dheeraadaan oo yaan lagu arkin wixii taacad ee macruuf ee shareecaddu ay fartayna ha fartoomaan oo ha la yimaadaan wixii munkar ee shareecadda islaamku ay naga reebtayna ha ka reebtoomaan haddii labadaa shardi qofka ducaysanaya laga helo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ballan inoo qaadayaa inuu ilaahay ducadeenna uu aqbalaayo oo qofka sooman buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xilliga afurku uu dhow yahay xilligaa ducadiisa waa la aqbalaa haddii uu qofku ducaysto lidaalika waa bil khaasa bishani oo qof kasta oo muslima la doonaya baahidiisa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sheegto